waxaa cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood laga fuliyay adeegyo caafimaad oo bilaash ah oo ay ka faa'iideysanayaan dadka aan awoodin inay iska bixiyaan qarashadka loogu sameeyo adeegyada caafimaadka kuwaas oo kor u dhaafaya tiradoodu ilaa 1,000 qof. Cusbitaalka Hargeysa International Hospital ayaa adeega caafimaadka ee bilaashka ugu tabarucay dadka aan awoodin inay iska bixiyaan qarashadkaasi. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood oo lagu fuliyay adeegaasi ayaa ka hadlay ahmiyadda adeegan caafimaad u leeyahay dadka aan awoodin waxayna sheegeen in adeegyada kala duwan ee dadkaasi loo sameeyay ay kamid ahaayeen daaweynta cudurrada guud qalinada indhaha iyo faruuryaha iyo sidoo kale la talin caafimaad iyo cudurrada maqaarka ku dhaco dadkaasi qaarkood laga daweeyay. Waxa maanta aan u mahadcelinayaa shaqaalaha noo yimi International Hargeysa ayaan aad iyo aad u mahadcelinayaa. waxa weeye markii labaad ay noo yimaadeen hawlo aad u badan baa meesha ka socda 11 dhakhtar baa fadhiya maantadaas ummadda bilaash ugu shaqeynaya noocay tahayba dadkii ugu jilicsanaa aan weligood dhakhtarka u helin fursadda ay ka faa'iideysanayaan muxuu ahaa waan soo dhaweynaynaa maanta kaliya nooguma eekaanayo insha Allah marka aan dad u helnaba waan u soo sheegaynaa si ay u yimaadaan iyagana ajar iyo xasanaad baa uga socda annagana wanaag iyo sharaf bay noo tahay haddaan ustaal ahaan nahay dhammaan waan la shaqaynaynaa cid allaale ciddii ummaddaas aan waxba haysan taakulaynaysa waan soo dhaweynaynaa waan la shaqaynaynaa marka labaadna maamulka oo dhammaantiina la shaqeeyay waxaan halkan ka fulinay caafimaad baan maanta u nimi shalay ilaa maanta waan joognay oo waan diyaarinaynay shalayna maantana way bilaabatay horena waxaan u sameynay qaybo cunto bixin ah oo aan gobolka geesihiisa ka sameynay marka International Hospital oo runtii ah isbitaalka maaragtay u qabta xaaladahan oo dhan ka maaragtay isbitaalka oo agaasimihiisa halkan iga xigo isuduwihiisa halkan iga xigo maaragtay agaasimaha guudna uu dhinaca kale iga xigo runtii waxaan dhihi karnaa waa isbitaal na soo dhaweeyay markan iyo markii horeba insha maanta waxa bartan aan ku soo booqanay dad bukaana ugu talagalnay ilaa 1,000 xaaladood inaan ku eegno iyadoo ay nala socdaan 8 takhasus 10 dhakhtar oo kala duwan lagu eegi doono waxyaabaha ka cabanayaan kuwii u baahda qaliin loo sameyn doono iyadoo loo xawilay dhakhtarka qaybtiisa Hargeysa qaliimada qaarna si firiya loo sameyn doono sida qaliimaha indhaha iyo faruuryaha runtii gobolka Sool gaar ahaan caafimaadka gobolka Sool gaar ahaan cusbitaalka dhexe Laascaanood dhakhaatiir ka socota Hargeysa International Hospital ama HIS runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa 1,000 qof bay eegayaan mana aha markii koowaad waa markii labaad 1,000 qof waa dadkii ugu jilicsanaa ee reer Sool aan awoodda u heli jirin ama fursada u heli jirin inay lacag bixiyaan ama cusbitaalka weyn ku bixiyaan ama bareefadada 1,000 qof bay maanta eegayaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hawshan ayaa ka socotay cusbitaalka magaalada Laascaanood maalmihii ugu dambeeyay waxaana dadkii ka faa'iideystay adeegaasi caafimaad ay sheegeen in aad u mahadinayaan una baahan yihiin adeegyada caafimaad ee bilaashka ay caynkan oo kala ah in loo sameeyo waa markii labaad ee cusbitaalka Hargeysa International uu cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ka fuliyay adeeg caafimaad oo bilaasha Farax Maxamuud Dubad goobjoog Laascaanood